شريطة بولدي كسور إكتي مركي بدي بدل الله تاعي دولة قبلت كبوتلان وهات من العويلة كي هاي دكتور عبد الرحمن محمد محمود فراوي أنت مركي كجدبو صلاة الإسلام كان كجدبنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذا البدن وما كعين إن الفريق اللي ديسوق جالسيو runtii ka saxaafad ahaan jaaliyada PDF annaga waxay noo tahay baalasha aan ku duuno baal ka mid ah waan u hambalyeynaya gudoomiyaha iyo hawlwadeennada kale ee PDF ee Puntland Diaspora Forum waa tirada inta waa markii labaad ay fursadna siiyaan haddii aan nahay ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed kal hore ama sanadkii hore sidan oo kale xafladii lagu qabtay Frankfurt ee lagu dabaaldegay Puntland ururka suxufiyiinta Soomaalidu wuxuu idin ballan qaaday in la helo idaacad Soomaali ku hadasha alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan ku guuleysanay oo uu agaasimaheedina fadhiya madaxii barnaamijyaduna fadhiya radio FSK idaacad yiraahdo af Soomaali ku hadasha oo laga dhageysto dhinaca iyo HamburG iyo nawaaxigeeda oo Soomaalida imika joogta ay aad ugu reeyeen waxaan rajaynaynaa inaanu halkaa ka sii ballaarino oo aanu helno mid guud ahaan jarmalka oo dhan laga dhageysto taas waa hambalyadan caawa idiin soo gudbinayo howladeednadeedina way joogaan inta marka laga tago Soomaalida halkan dhinaca hadalka mooyaane qoraalku aad buu ugu yaraa ururka suxufiyiinta Soomaalidu waxay isku dayeen sidii Soomaalidu ay u heli lahayd buugaag afkooda hooyo ku qoran ay akhristaan labada buugaag gacanta ku hayo waxa diyaariyay ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed mid wuxuu ka hadlayaa Soomaali sheekooyin Soomaali oo caadi ah oo runtii badan aad qiiroon doontaan haddaad akhridaan waxaana ciwaankiisu yahay markan camalka barakaysan fuliyo ayaan istaagayaa waa sheeko Muqdisho ka dhacday gabadh wiil jiri sii qaado dabeedna shaqninku way isku xiyaan u doonayaayo liftiisii bayana ku jiri yadna ku mar buran istaagay mar labaad ma istaagayo ururada aad u wajin meesha doonto istaago say u socdeen ayuu raadabay jiri istaagan ka dagay markaasuu saaxiib camalka barakaysan baan socdaa gaariga saarno war ilaahay ka boqoyda jooji marka buuga ku qorantay sheekadaasi markan camalka barakaysan fuliyo ayaan istaagaya waxaan ugu talagalnay Soomaalida badanaa telefoonada ku hadlaysa marka tareemada saarihiin inay waxay ku mashquulaan helaan ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed maadaama ay Soomaalidu ku soo badanayaan jarmalka annagoo badanaba jarmal wanaagsan oo nin waxaanu diyaarinay buuga yar la yiraahdo isbar jarmalka macallaan labadaba waa lacag la'aan weeye ururka suxufiyiinta ayaa maalgeliyay buugaas wuxuu ka kooban yahay 600 jumladood oo isku fasiraya Dutch, Somali iyo English waa dadaal ay ururka suxufiyiinta Soomaalidu ay sameeyeen waxaanu jecelnahay halkaa inaanu ka sii ambaqaadno gudoomiyaha PDF mudane Maxamed Cabdiraxmaan waxa uu noo ballan qaaday inaanu isla xafladan ku dhigano walqashii ururka suxufiyiinta ee si joog oo aanu halka ku ballan qaadnay laakiin waan ka xumahay hawlo naga xanibnaayo qolo reporters oo noo iman lahaa iyo wax naga xanibay ayay maanta nagula qarsoon weyday inaanu ku labaanayno xafladda Puntland waxaan idin leeyahay guul ayaanu wadnaa iyo waxaanu idinka baahanahay ducadiina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh أنت ما سنتهاي مستفشل هارون إسبار أفجر